doomihii hore waxay lahaayeen mashiino go'an iyo steerinka caadiga ah taasoo ku qasbi jirtay inay iswareejiyaan ka hor intayna wax riixin laakiin kuwa casriga ah waxay isticmaalaan nidaamka asymmetric thruster ama C-drive motorka hoose ee doonta wuxuu u wareegi karaa 360 darajo taas macnaheedu doontu waxay u socon kartaa dhinac kasta waxayna ku wareegi kartaa meesheeda waxayna dhalin kartaa awood dhinac kasta ah oo u jeeda isla markiiba iyadoo aan loo baahnayn in doonta la warwareejiyo qiyaas baabuurkaaga oo taayiradiisu ay u jeesan karaan dhinac kasta si madax bannaan iyadoo uusan baabuurka u jeesan dhinacaas waxaa jira xaqiiqo kale oo dadka badankooda aysan filayn shaqada ugu muhiimsan ee tugboatku qabto marka markabka dekada la soo gelinayo ma aha inuu markabka hore u riixo ama geeska ka riixo shaqadiisa ugu weyneed waa inuu u dhaqmo sidii brake ama shock absorber inkasta oo markabku si tartiib ah u socdo miisaankiisa oo ah 200 oo tan ayaa leh tamar loo yaqaano kinetic energy oo aad u weyn haddii markabkaas taabto dekada isagoo wax yar ka dheereeya sidii loogu talagalay burburka ka dhalan karaa waa mid masiibo ah oo dumin kara dhammaan dekada tugboatka jooga dhinaca ee u dhaxeeya markabka iyo jambiga dekada ayaa dhab ahaan